inta badan waxaa laga hadli jiray shacabka dhibaato la gaarsiiyay dad baa sidaa la yeelay wali wax ganacsiga ka hadlay ma maqal qodobka koowaad ganacsigu waa inuu cadaalad helo jaal madaxweyne isoofi aad ii dhageyso ganacsigu waa inuu cadaalad helo waa inuu ka baxo midii hore ee isku jiray ganacsiga qodobka koowaad midaasi maxay ahayd ganacsiga cadaalad darrada ninka madaxweynaha ah cidda isaga ehelka ah uu qaadan jiray oo mashaariicda siin jiray cidda wasiirkaana cidda isaga ehelka ah uu wax siin jiray cidda gobolka joogtana cidda ehelka ah uu wax siin jiray cidda degmadaana sidoo kale bay ahayd boqolkiiba markay ka noqdaan 99 kale xagee aadi shacabki oo qandaraasyada inta wasiirkii iyo madaxweynihii iyo gudoomiyihii gobolka ay qaataan midda waxaan ka codsanaynaa jaal madaxweyne inaad iska ilaaliso oo barnaamijka uu noqdo mid la go'ay oo ay noqoto nin walba khibradiisa iyo awoodiisa iyo raganimadiisa waxaa jirta xagga dakhliga dhibaata ka jirta xagga dakhliga dhibaata ka jirta gaariga ka soo baxay Addis Ababa 4 kilil buu soo maraa kililka Addis Ababa kililka Canfarta kililka Oromada kililka Hareeriyiinta lama taabto inta uu soo marahayo markuu soo gaaro baash meesha la dhigi jiray jigjigana waxaa loo nala soo waxaa la dhahay gaariga waa la haystaa ee lacag intaas oo dhan bixiya laga soo bilaabo jigjiga ilaa goday wuxuu ku jiraa 10 saacadood oo midba 2 saac buu meel ku haystaa taana waxaan ka codsanaynaa in laga daayo oo dakhligaas fahadkii iyo dhibaato ku haysanaa ay sida ay ahaato oo soo war waxa weeye dhibka kale dhibka ka jira xagga deymaha shacabku waa la dhacay waxaa lagu dhacay laba arrimood mid waa deyn laga qaato maamulkii hore intuu ka qaatay dadkii ka qabay ay duurka galeen oo la haynin qodobka labaadna qandaraasya lagu dhacay dadka uu wada dhacan yahay dadkii noocaas ah waa in hantidooda ay helaan oo meel looga raamo dadka loo soo qabto qodobka saddexaad xagga boob baa jira boob madaxweyne boob dadkii boobay wadankii annagoo ganacsi oo taagtaagan oo ka codsan in beerana la siiyo yaa waxa la yeelay siin maayo kii laga keenay Tigray kililla dhulka annaga waa la siiyay annaga maal gashan lahayn magaaladan annaga maal gashan lahayn oo dhisan lahayn waa in lagu soo celiyo dhulka annaga ganacsiga annaga samaysano qodobkaasna waa mid waxaa jirta madaxweyne hay'adaha ka jira halkan sida WFP oo kale waxa u soo qaato waxoodii iska leh niman xamaarooyin iyo Tigreeya lacagtooda halkan ay ku soo shubaan hal riyaal annagu kama aragno 40 qandara hay'adood baa ka jira WFP dhexdeeda hal riyaal kama hadalno intii raashinka ahayd bay dad reegoday qaadan jireen intiina waxa laga soo qaatay Addis Ababa lacagta halka waxa weeye kii wax shaqaaleyn haya kii wax qaadan haya kii wax raran haya waa dad meel ka yimid ma dadka noocaasa waa inay noqoto wuxuu dad filaha leeyahay meesha la yiraahdo elale waxa ka jirta 100 qandaraas la ka jirto kambaniyaal 100 qandaraas ee kambaniyaal biyaha la cabo irbada wax lagu tosho waxa laga keenay Addis Ababa 120 qandaraas la ka jirto oo Ethiopia laga keenay hal ruuxa Soomaali kuma laha waxa weeye markii in loo soo celiyo gacantaana lagu soo celiyaan rabnaa qodobka kale ganacsigu ma midaysna dhibaata ka jirta waxa jiri jiray ganacsigu inuu yeesho hal meel oo laga maamulo oo ganacsi uu leeyahay iyo dad xuquuqda ganacsiga u dooda in la sameeyo ganacsato mida oo gobolada iyo degmooyinka intii la ururiyo la shiriyo la isu geeyo loo sameeyo maamul ay noqoto ganacsigu mid uu xuquuqdiisa ka hadlan karo oo meeshu doona gaarsiin karo waxa jirta qaybta kale Ethiopia waxaan ku leenahay xuquuq baan ku leenahay ganacsigeena iyagu baa ina soo doontay uma doonano ganacsatadeena waa weyn in laga qayb geliyo Ethiopia u foofaan oo wixii Ethiopia leedahay wax ka qaataan oo qandaraasyada wax ka helaan oo waxyaalaha waaweyn bilaayinta